Let's learn English. Let us learn English. Soo baxa aan barano Englishka. Soo dhawaada asxaabay ku soo dhawaada koorsadan lagu magacaabo Let us learn English. Koorsadan waa koorso free ah oo ay sameeyeen VOA Learning English Voice of America. Waa group ama urur yacni sameeyaan content ama educational content oo free ah si ay dadka uga faa'iidaystaan weliba waxay ku diyaariyaan simple English yar oo fudud oo la fahmi karo. So koorsadan ayagaa sameeyeen lagu magacaabo Let us learn English waxaan loogu talagalay in dadka mataqaanaa beginnerka oo yacni bilowga ah ay koorsadan qaataan si ay u bartaan Englishka. So koorsadan waxay ka kooban tahay 52 cashar mid kasta wuxuu ka kooban yahay muuqaalo, practice, vocabulary, pronunciation yacni waxaana loo diyaariyey si oo mataqaanaa fudud oo qof walba uu fahmi karo. Koorsadan waxaa jili doonta gabar lagu magacaabo Anna oo ka soo guurtay magaalo yar u soo guurtay Washington kadibna Washington ku noolaan doonto nolosheeda iyo mataqaanaa halkaas ay English ku baran doonto. Marka yacni Let us learn English micnaheedu waxay tahay like Anna ayaa Ingiriiska la baran doona. Marka waxaa loogu talagalay dadka bilowga ah si tallaabo ah inay u horumariyaan mataqaanaa speaking-kooda oo ah siday ugu hadlayaan luqadda, listening-ka waa dhegeysiga, vocabulary-ga oo yacni eray bixinta iyo naxwaha oo ah grammar-ka. Waana bilaash oo yacni free waaye 100%. Sababta aan koorsadan idinla wadaagayo waxay tahay waxaa jiray muuqaal aan soo dhigay oo ku saabsanay mataqaanaa speaking practice Englishka ku saabsanay. Marka dad badan waxaa arkayay soo qoraayo mataqaanaa noo soo badi weliba gabdho masha Allah gabdho isbaraya Ingiriiska keligooda. That's so I'm proud of you guys. Marka waxaan arkaya inaad dhehaysiin yacni noo soo badi. Sidoo kale waxaan soo geliyey vocabulary ayagana sidoo kale vocabulary-ga waxaa arkaya dad soo dhahayo soo badi. Marka koorskan wuxuu ka kooban yahay real conversation yacni wada sheekaysi oo yacni run ah uu ka kooban yahay iyo vocabulary eray bixintii wixii dhan ayuu ka kooban yahay. Macnaha wixii oo aan soo gudbinayo dhan oo hal meel isugu keena camal lewa. Yacni Ingiriiskii waxaan soo gudbinayo English la barto ma oo Ingiriiskii oo hal koorsa laga dhigay. So zaid inay idin caawin doonto ayaan rajeynaya. Sidoo kale dadku way kala duwan yihiin. Qofna xoogaa wuu oran yahay qofna zaid uu beginner u yahay zaid uu mataqaanaa oo bilow u yahay. So haddaa xoogaa roon tahay oo mataqaanaa Ingiriiska oo simple-ka fahmi kartid linkiga waxaa soo dhigi doonaa description-ka soo dhigi doonaa. So xaggaas ka gal kadibna koorsada halkaas ayaa ka qaadan doontaa 52 cashirba xilligaa rabtid saa rabtid ayaa u qaadan kartaa. Xataa sign up muu baahno yacni free waa idan yacni website-ka la tegay kadibna cashiraanta dhan ayaa halkaas ka qaadan kartaa. Waa haddaa Ingiriiska yacni simple-ka fahmaysid oo ay ku sharxayaan. Haddii kaleeto oo yacni zaid beginner u tahay oo zaid bilow u tahay aniga waxaan samayn doonaa cashir walba soo geli doonaa. Cashir walbo vocabulary-ga, conversation-ka wax walba ku jiro waa sharxi doonaa step by step. So waxaan soo geli doonaa isku dayi doonaa inaan soo geliyo usbuuc walba 2 cashirna soo geliyo ayaan isku dayi doonaa. So halkan ayaa ka qaadan kartaa marka koorsada cashiraanteeda haddii aa mataqaanaa zaid beginner u tahay. So marka muuqaalka xiga wuxuu noqon doonaa cashirka ugu horeeya ee koorsada Let us learn English. Muuqaalkan wuxuu ahay yacni hordhac yar oo kugu sheegaya koorsada waxa ay ku saabsan tahay. Hadda waxaan hore u sii qaadanaynaa hordhaca koorsada Let us learn English. Cashir koowaad maaha laakiin waa hordhac yar oo lagu barayo Anna oo ah aktarada mataqaanaa koorsada. So aan qaadana hadda. Hello, my name is Anna Mateo. Waan idin salaamay. Magacaygu waa Anna Mateo. I am from a small town. Waxaan ka soo jeedaa magaalo yar. It is nice, but there is no good job for me. Way fiican tahay laakiin ma lahan shaqo ii fiican aniga. Goodbye, small town. And hello, Washington, D.C. Waan ka soo tegay ama macsalaama magaaladii yareeday. And hello, Washington, D.C. waxaan imaaday Mareykanka. I want to learn about Washington. Waxaan rabaa inaan barto Washington. You want to learn English. Waxaad doonaysaa inaad baratid Englishka. So marka annagana la hadlo saa like Let's learn together. soo bax aan si wada jira u baranee.
Let us Let's learn together. English. So intaas ayay ahayd hordhaca waxaan baranay Anna oo ah inay gabar kasoo jeeda tahay mataqaanaa magaalo magaaladaas oo tagtay shaqo la'aan kadibna ay imaaday Washington halkaas ay ku baran doonto Ingiriiska. Muuqaalka xiga waxaa noqon doonaa cashirka koowaad ee Let us learn English. So halkaas ayaan kasii wadi doonaa insha Allah.